Fiidiyogeena gaaban waxaan maanta kaga hadlaynaa Familian Midglida oo ah qoyska inta ka tirsan. Janalkan haddaad ku cusub tahay waxaan kusoo bandhigaa luqadda Jarmalka iyo guud ahaan wixii Jarmalka ku saabsan. Wax su'aalaha haddaad haysid comment-ka noogu soo qor. Aan ka bilowno ragga. Mein Bruder waa walaalkay. Mein Vater waa aabahay. Mein Onkel waa adeerkay iyo abtigay. Mein Cousin waa in abtigay in adeerkay iyo dubrigay. Mein Opa waa awowgay ama ayeeygay. Dumarka. Meine Schwester waa walaashay. Meine Mutter waa hooyaday. Meine Tante waa edaday iyo habaday. Meine Cousine waa dubriday in abtiday iyo in adeertay. Meine Oma waa mucuyday ama ayeeyday. Neffe waa wiilka walaasha ama walaalka dhalay. Nishtana waa gabadha walaalka ama walaasha dhashay. Enkelkinder waa ubadka wiilkaaga ama gabadhaadu ay dhashay. Mein Enkel waa wiilka gabadhaada ama wiilkaagu dhalay. Meine Enkelinnen waa gabadha wiilkaaga ama gabadhaadu ay dhashay. Imikana waa gacalkii. Schwager waa seediga. Schwiegerin waa dumaashida. Schwiegervater waa sodoga. Schwiegermutterna waa sodohda. Familienstand waa xaaladda qofku uu yahay. Ledig waa qofka xaaska ahayn. Verheiratet waa qofka xaaska leh. Geschieden waa qofka la furay ama labada qof ay isfurtay. Verwitwetna waa qofka laga dhintay. Imikana dhowr saats oo tusaalaha soo qaadanaynaa. Ich bin ledig ma ihi xaas. Ich bin verheiratet xaas baan ahay. Ich war verheiratet aber jetzt bin ich geschieden. Xaas baan ahaa laakiin hadda waa lay furay. Meine Frau ist vor einem Jahr gestorben. Islaantaydu sanad ka hor ayay dhimatay. Ich bin seit einem Jahr Witwer. Sanad ayaan ahay carmal. Mein Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Odaygaygi 3 sano ka hor ayuu dhintay. Ich bin seit 3 Jahren Witwe. Waxaan ahay in 3 sano aba carmali.